نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخواني في الله، درسيغاني waa درسيغي saddexaad waynu kaga hadlayno qisatu aadam calayhi السلام, waliba khaasatan almabxath alawal, mabxathkii dikru aayaat fi khalqi aadam calayhi السلام. waxay noo soo hormartay aynu ka soo hadalnay aayadihii ka hadlayey fi suurati albaqara oo aadam iyo khalqigiisii iyo abuurkiisii ka hadlayey. kii labaadna waxaynu kaga hadalnay fi suurati alacraaf aayadihii ilaahay kaga hadlay. dersigan saddexaad waxaynu kaga hadlaynaa fi suurati alxijr, suurati alxijri aayadaha ilaahay uu kaga hadlay oo inoogu balbalaariyey oo si fiican loo tafsiiliyey qisadii la yiraahdo albashariyatu aluulaa, macnaha markii ugu horreysay markii ilaahay uu aadam abuurayey oo ilaahay uu halkaa iyo samada ku abuuray, iyo wixii dhex maray markii la amray inay u sujuudaan malaa'igtu say ugu sujuudeen, ibliisna uu diiday. weliba khaasatan aayadahan waxay kaloo inoo sii faa'iideynayaan, waynu arki doonaa ibliis inuunan malaa'igta ka mid ahayn, laysa min almalaa'ika bal inuu yahay min aljinni oo ilaahay uu ka abuuray naar ayaynu arkaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala. allah waxa uu yidhi walaqad khalaqna alinsaana min salsaalin min xama'in masnuun waljaanna khalaqnaahu min qablu min naari samuum. labada aayadood ilaahay wuxuu ku caddeeyey aayadda hore ibliis aadam calayhi salaam wixii laga abuuray, aayadda dambana ibliis meesha uu ka yimid ayaa laynoo caddeeyey. allah waxa uu yidhi aadam markuu ka hadlayay walaqad khalaqna alinsaana, insaankii ayaanu abuurnay min salsaalin min xama'in masnuun. salsaal maxaa la yidhaahdaa? xama'na maxaa la yidhaahdaa? masnuuna maxaa la yidhaahdaa? salsaalku waxa weeye waa dhoobada qallalan markii inta marka hore la qooyo oo qorrax la dhiga ay qallasho oo ay markii aasaa wax ugu dhufatid sharqan ka yeerayso ayaa waxaa la yidhahdaa salsaal. waayo sida aayadaha markii kulli la wada fiiriyo, acraaf iyo suuratu saad iyo kulli markaa fiirisid saafaad iyo, marka ugu horreysa allah maraaxil buu aadam maray. markii ugu horreysay waxaa layna yidhi ciid baa laga abuuray. ciiddu waa marka ay qallalan tahay oo marka hore aan biyo iyo waxba la taabsiin baa turaab la yidhaahdaa oo ciid la yidhaahdaa. kabacdi marka dambe dhiin baa la yidhaahdaa oo dhoobay noqonaysaa. waa markay qoyan tahay oo dhoobadu waa marka la qooyo. oo innaguba ciid markaynu bannaan ka soo qaadanno oo wax ku dhisanayno marka hore waa ciid baa la yidhaahdaa. markii la qooyo oo biyo lagu darana dhoobaa la yidhaahdaa. oo ilaahay fi suurati wasaafaad buu ku leeyahay min diinin laazib, macnaha dhoobo qoyan oo gacantaada soo raacaysa oo ku dhegaysa oo qoyan. halkan markaa dhoobadii oo qallashay waa midii saddexaad, dhoobadii oo qallashay marka oo waxa weeye inta horey loo qooyey qallashay oo markaas haddii aad wax ku dhufatid sharqan ka yeerayso oo qow dhahaysa ayaa salsaalka la yidhaahdaa. marka waa dhoobada qallalan, macnaha markii la qooyey oo biyo lagu qooyey qallashay oo markaas wax ishaysta noqota ayaa salsaalka la yidhahdaa bay yidhahdaan culummadu. min xama'in ay madow oo madoobaatay, markay qallashay madoobaatay. min xama'in masnuun, masnuunkuna waa almutagayir baa layidhi, doorsoontay oo isbedeshay
oo qaabkeedii oo dhan ka baxday. idan marka dhoobo la qooyey oo ka bacdi markaa qalashay oo markaan aan qoyanayn oo madoobaatay oo isbedeshay ba aadam laga abuuray calayhi salaam. markii dab la geliyo dhoobadaas oo dab lagu dubana fakhaar baa la yidhaahdaa, oo waxa weeye waa nooca kale sida marka aashuunka iyo la samaynayo inta saasoo kale loo gala markay qalasho haddana la gubo markaa fakhaar baa la kal fakhaar buu ilaahay ku tilmaamay. idan marka hadda halkan waa dhoobadii wax la suuraynaya. nabiyullaahi aadam calayhi salaam maraaxishaasuu maray, waxaana laga abuuray dhoobada iyo ciidda. taasi waxay raddi ku tahay oo waadix u tahay dadka waxa weeye caqiidada oranaysa bilow aadnigu daanyeer buu ka yimid, oo caqiida falsafad oo waxa weeye aan meelay raad ku leedahay jirin ayay waxa weeye ku cadaynaysaa caqiida baadila inay tahay. ilaahay nabiyullaahi aadam ciiddaasuu ka abuuray, dhoobuu ka dhigay, saasuu u bedelay, waxa weeye kabacdina naftu ku afuuf. taa marka waa aadam iyo khalqigiisi. waljaanna khalaqnaahu min qablu min naari samuum, jaanka oo jinniga ana waxaanu ka abuurnay hadda ka hor, oo aadam intaan la abuurin ka hor baa jinka la abuuray. min naari samuum ay olol aan qaac lahaynoo ololka aan qaaca lahayn oo waxa weeye holac ah ayaa la yidhaahdaa min naari samuum. taas ayay ku fasireen culummadu. idan ibliisna waa min aljaan, oo qaar culummadu waxay leeyihiin aabbaha jinkuba waa ibliis. qaarna waxay leeyihiin maya isagaa min aljaan ah, walcilmu cinda allah. laakiin kollay meeshaasuu joogay oo waxa weeye malaa'igtii ayuu ku dhex jiray, ama markaa keligii ha ahaado ama waxa weeye jinni ha ka yimaade. kabacdi baa ilaahay waxa uu yidhi markuu saas u abuuray ayuu allah malaa'igtii la hadlay. waid qaala rabuka lilmalaa'ikati innii khaaliqun basharan min salsaalin min xama'in masnuun. malaa'igtii baa waxaa lagu yidhi waxaan abuurayaa bashar aan ka abuurayo dhoobo qalalan oo madow oo bedelantay ayaan ka abuuraya. ilaa fii suurati albaqara aynu ku soo marnay inuu yidhi allah innii jaacilun fi lardi khaliifa, qolo dhulka ku noolaataan abuuraya. idan allah waxa uu yidhi marka dhoobadaa markaan ka abuuro fa idaa sawaytuhu wa nafaqtu fiihi min ruuxii faqacuu lahu saajidiin. fa idaa sawaytuhu marka aan simo oon dhammaystiro, ay aan u dhammaystiro suuraddiisii, aan dhammaystiro oon abuuro oo aan ku afuufo min ruuxii ruuxdaydii nafta aan ku afuufo. ay ruuxdoo dhan ilaahay baa leh oo waxa weeye waa ilaahay baa abuuray. markaan ruuxdayda ku afuufo faqacuu lahu saajidiin. amar waa faqacuu dhaca saad malaa'igu tihiin, lahu isaga u dhaca, saajidiina idinka oo u sujuudaya. sujuudda culummadu waxay yidhaahdeen waa taxiya, waa salaam, ay cibaado ma aha. marka sujuudu cibaado ma aha, waa sujuudu taxiya, waa salaan. wayna ku bannaanay diimihii hore, diinteennaa lagu xarimay, laakiin diimihii hore waa ku bannaanayd. waatuu nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam allah inooga sheekeeyey fii suurati yuusuf, wa rafaca abawayhi cala alcarshi fakharuu lahu sujada. ay salaam bay la dhaceenoo marka in ay waxa weeye la isku sujuudo oo ixtiraaman wa tashriifan wa tacdiiman qofka la sharfayo ma aha in la caabudayo, cibaado ma aha. marka waa la xarimay, diinteennana waa la diiday oo nebigu waa xarimay. oo waxa weeye mucaad ibni jabal markii uu waxa weeye ka soo noqday shaam oo uu nebiga damcay inuu u sujuudo, man amaraka bi haada bu yaa ku amraysaa? markaasuu ya rasuulku ilaahi waxaan arkay nimankii joogay maaragtay kanaa'ista oo loo sujuudayo, adaana ka wanaagsan. maya buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam, low kuntu aamiran, haddaan qof amrayo an yasjuda liaxadin la amartu lmar'ata an tasjuda lisawjiha licidami xaqihi calayha.
macnaha xaqa uu ku leeyahay weynankiisa ayaan odhan lahaa qofka dumarka ah u sujuuda ninkeeda, laakiin ma bannaana oo sujuudda ilaahay baa iska leh, makhluuq looma sujuudi karo. marka faqacuu lahu saajidiin baa leh. amarkii waa qaadatay malaa'igtu, ibliisna waa ku dhex jiraa. allah waxa uu yidhi fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuun. fasajada almalaa'ika, malaa'igtii waa sujuudeen. kulluhum waa ta'kiid waaye, dhammaan waa sujuudeen. ajmacuun waa lasii adkeeyey, waa ta'kiidaad iska daba yimid. qofna malaa'igtii ka mid ah ma diidin, oo halkaa waxaa lagu saaraya ibliis inuusan malaa'igta ka mid ahayn baa lagu tusaya. ilaa ibliisa abaa an yakuuna maca saajidiin. marka ilaadaasi waa istithnaa munqadica, laakina ibliis ma sujuudin, meeshuu joogay oo waxa weeye waataynu soo marnay id amartuka maa manacaka anlaa tasjuda id amartuka, markaan ku amray inaad sujuudi maxaa u sujuudi weyd. marka ibliis malaa'igta ka mid maaha, waa min aljinni, laakiin meeshuu joogay amarka dadka malaa'igta la siiyey ayaa isagana la siiyey. wixii meesha joogay oo dhan ayaa la yidhi u sujuuda aadam u sujuuda. ilaa ibliis mooye, ibliis waa diiday isagu. abaa wastakbara, waa diiday waataynu soo marnay abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin. abaa an yakuuna maca saajidiin. ilaahay baa su'aal weydiiyey, qaala maa manacaka ayaa layidhi. waxaynu ku soo marnay fi suurati acraaf, saadna inoogu imaan doonta maa manacak, laakiin halkan waxaa la yidhi yaa ibliisu maa laka anlaa takuuna maca saajidiin. marka maa laka iyo maa manacaka waa isku mid weeye. maxaa kuugu sugan oo kuu diiday inaad sujuudid? anlaa takuuna maca saajidiin waa caddaystay, faam buu la yimid. qaala lam akun liasjuda libasharin khalaqtahu min salsaalin min xama'in masnuun. lam akun anigu ma ahaanayo, mana ihi buu yidhi, ma noqonayo mid u sujuuda libasharin, bashar aad ka abuurtay min salsaalin min xama'in masnuun, dhoobo madow oo qalashay oo doorsoontay waxaad ka abuurtay, aniga ma u sujuudayo. aayadaha kaluu ku caddeeyeyoo waxa uu yidhi anaa khayru minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin. anaa ka khayr badan buu yidhi oo ka fiican, see ugu sujuudaa? faan buu la yimid iyo caqli. awalu man qaasa waatay yidhahdeen culummadu, isaga qiyaaskiisii baana halaagay. amarka ilaahay inuu qaatay ahayd, laakiin aadam inuu fiiriya lama rabine, allah ayaa amray amarka ilahay inuu qaata bay ahayd. allah waxa uu yidhi fakhruj minha fa innaka rajiim. fakhruj minha, marka minhaadaas culammada qaar waxay u celiyeen aljanna, jannada ka bax. oo meesha la joogaa waa jannadii, jannada ka bax baa leeyi, oo malaa'igtu jannaday joogeen. qaarna culammada waxay u celiyeen min zumrati almalaa'ika, ka dhex bax malaa'igta, ha ku dhex jirin oo xaq uma lihid. malaa'igtu ilaahay bay caabudayaan, amarkiisana ma khilaafaan. mar haddaad aduu amarkii khilaaftay, ka dhex bax malaa'igta. qaarna waxayna ay min asamaa, samada ka bax, oo fahbid minha oo kala waa, ka bax samada. intabana waa loo celin karaa. marka fakhruj minha, ka dhex bax malaa'igta, ka dhex bax, ama jannada ka bax, ama samada ka bax. taa doontid ba u celo, waa isku mid wa. fa innaka aduu rajiimun ay marjuumun, mid naxariista laga dheereeyoo la fogeeyey baa tahay, oo naxariista ilaahay laga dheereeyo matruud ah. waxa weeye naxariis aan indha saaraynin, ka bax baa leeyi jannada. fa innaka rajiim wa ina calayka alacnata ilaa yowmi ddiin. dushaadana waxaa ku dhacday nacladii baa ku dhacday. aayadda kale ilahay ku tilmaamayaa wa ina calayka lacnatii ilaa yowmi ddiin. nacladaydii baa kugu dhacday. allacna waa addardu waalibcaadu can raxmat illah, waa in laga fogeeyo naxariista ilaahay oo laga cayriyo, naxariisna uuna indha saarin wey. ilaa yowmi ddiin baa la yidhi halkan, ilaa yowmi alqiyaama iyo yowm aljaza walxisaab. oo marka ilaa maqaaya maya, waa mubaalaqa laga wadaa bay yidhahdeen culummadu. ilaa abadi alaabaad waa malcuun waa. aakhire marka la tagana waa malcuun oo jahannamuu gelaya.
adduunkana waa malcuun oo naxariista baa laga dheereeyey ee ma aha inay maalintaa ugu eg tahay oo kabacdi uu wanaag helaya ma ah ilaa abadi alaabaad waa malcuun naxariista ilaahay laga dheereeyey wey. halkaa markuu marayo tadaruc lama imaan, ilaahayna ma baryin, mana toobadkeenin. qaala andirnii ilaa yowmi yubcathuun. aadan baa u muuqda iyo durriyaddiisiiyo dagaal buu ku jiraa. amarka ilaahayba uma muuqdo, naarta loogu goodiye uma muuqato, waa qof dhunsan wa. qaala andirnii ilaa yowmi yubcathuun bay, ilaahayow ii kaadi inta la isa soo saarayo. qaala fa innaka min almundariin ilaa yowmi alwaqti almacluum. waxaa lagu kaadinayaa baa layidhi ilaa waqti almacluum, ilaa yowmi alwaqti almacluum. culummadu waxay yidhahdeen waa annafkhatu aluulaa. qiyaamuhu markuu dhacayo 2 jeer baa buunka la afuufaa. midda waa midda horeo lagu dhimanayo oo wixii markaa koomka saaran oo dhan ay dhimanayaan. midna waa midda dambe oo lagu soo noolaanayo oo qabuuraha lagaga soo baxayo. marka maalintaas wax bashara oo dhan dhimanayaanoo koomka waxa saaran ay la-anayaan, maalintaasaa loo kaadiyey baa layidhi. maalintaasuu dhimanayaa bay yidhahdeen culummadu, oo la dhimanayaa yowmulmacluum. halkaa wey. markuu ogaaday marka inuu intaa noolaanayo oo ballantii ilaahay u qaaday ayuu dhaar isku xaadiyey. qaala rabbi bimaa aqwaytanii la usayinanna lahum fi lardi wala uqwiyannahum ajmaciin. fii suurati saad buu ku odhan doonaa fabicizatika la uqwiyannahum ajmaciin. ilaahayow waxaan ballan ku qaaday buu waan ku dhaaranayaa maadaama aniga aad i dhumisay oo waxa weye naar ii waajibtay, anna ballan waxaan ku qaaday aadam durriyaddiisa. aadam ma dhumin karo, waa nebi, laakiin durriyadda aadam la uqwiyannahum ajmaciin, inaan baadiyeeyaa say u dhan yihiin oo aan naar ku gura. anna naar hayla galeen marka ujeeda ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin buy. wuu ka soo reebay istithnaa, ilaa cibaadaka addoommadaada oo minhum iyaga ka mida almukhlasiina ay loo barax tiray oo loo saafi yeelay oo ilaahay mukhlasiinta ka dhigay oo loo barax tiray allah subxaana wa tacaala. ay addoommadaada khaaska ah oo aanan u dhowaan karin oo aanan waxba dhumin karin oo adiga cibaadadooda adigu aad leedahay ma ahe, inta kale waa dhuminaya. marka 2 qiraa'aa jira, in la yidhaahdo almukhlasiina oo laamka la kor dhigo iyo almukhlisiin oo laamka la hoos dhigo. marka qiraa'ada hadda musxafka oo xafsa ibn caasim iyo waxa weeye qiraa'aad kaleba waa in la kor dhigo almukhlasiin. ilaahay baa markaa saafi yeelay weeye oo addoommadaada mukhlasiin ka dhigay, aad ka dhigtay kuwa uma dhowaan karo. qiraa'ada waxa weeye abu camar iyo waxay odhanaysaa iyo qiraa'aad kale oo iyaguna waa qiraa'a sabciya, waxay odhanaysaa mukhlisiin, ay kuwa iyagu cibaadadaada kuu gaariyeelaya wey. mukhlis waa kan isagu markaa u gaariyeelaya cibaadada, waa ismu faacil oo cibaadadii isagu u gaariyeelaya. marka kuwa cibaadada kuu gaariyeelaya 2 qiraa'aba waa istithnaa weeye. waxaa weeye addoommada ilaahay oo adigu aad leedahay oo cibaadadu ay samaynayaan keligaa kuu samaynaya, kuwa uma dhowaan kara wa wajed ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin. allah subxaanahu wa tacaala markaa wuxuu uu yidhi qaala haadaa siraatun calaya mustaqiim ina cibaadii laysa laka calayhim suldaanun ilaa man itabacaka min alghaawiin. qaala allah waxa uu yidhi haadaa siraatun calaya mustaqiim, wakaa jidkayga toosan kaas waay. macnaha waxay yidhahdeen culummadu waxa weeye ay waddada xaqa oo toosan oo waddadayda aniga raalli ahaanshahayga lagu gaarayo waa middaas. waxa weeye aniga ayayna iisoo dhammaanaysaa. oo macnaha waddada xaqa waa cibaadadaas ikhlaaska iyo wanaagga iyo xaqa oo anigu aan dadka uga raalli noqonayo. marka maxay tahay? ina cibaadii laysa laka calayhim suldaan, addoommadayda wax suldaana kuma lihid. ina cibaadii addoommadayda mukhlasiinta ah laysa laka calayhim suldaan,
ilaa man ittabacaka min alghaawiin kuwa ku raacay oo ghaawiinta alghaawi waa kan dhumay oon waxba kala ogeyn oo jaahilka oo macaasida ku dhex jira oo gaalnimada iyo macaasida ku dhex jira kuwaasaad kaxaysanaysa oo kuwaa kaxaysa waa ciddii ku raacda waka min alghaawiin xaggee masiirkoodu noqonaya allah waxa uu yidhi ina cibaadii laysa laka calayhim suldaan ilaa man ittabacaka min alghaawiin wa ina jahannama lamawciduhum ajmaciin wa ina jahannama ayaa lamawciduhum ballantiinna kulligiin saa u dhantihiin inta ku raacday iyo adigaba ballan waxaa ah inaan jahannama ayaan u diyaariyey oo ballanta ida sugaysaa waa jahannamo idan marka jahannamo ayaa loogu goodiyey mana uu toobad keenin weli waa soo taagan yahay iyadoo jahannamo loogu goodiyey wa ina jahannama lamawciduhum ajmaciin lahaa 7 abwaabin likulli baabin minhum juz'un maqsuum allahu akbar allah waxa uu yidhi wa ina jahannama lamawciduhum ajmaciin ujeeda kulligood waxaa jahanname ayaa sugaysa lahaa 7 abwaabin likulli baabin minhum juz'un maqsuum lahaa 7 abwaab ay jahannama waxay leedahay 7 albaab ayay leedahay 7 albaab likulli baabin minhum juz'un maqsuum albaab walbana waxaa ka gelaya qayb u gaara ayaa gelaysa waxay yidhahdeen culummadu marka 7da albaab waxaa laga wadaa 7 dabaq weeye bay yidhaahdeen oo waxa weeye isa saaran oo kala duduwan dabaq kastana waxaa gelaya qayb kuwii gaaladii mushrikiintii macaasidii munaafiqiintii waa darakaat ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar waatu allaa lahaa idan marka darakaadka kala hooseeya ayaa qayb walba albaab gaara laga gelayaa bay yidhahdeen culummadu taasaa marka laga wadaa lahaa 7 abwaabin likulli baabin minhum juz'un maqsuum marka sidaa daraaddeed marka ilaahay in laga magan galo daa'iman wa abadan inuu ilaahay naga badbaadiyo jahannamadaa khatartaa oo albaabadaas leh oo waxa weeye sugaysa inta qaawiinta oo waxa weeye adduunyada raacday lanno ibliis waa dhaartay la uzayinanna lahum fi lardi wala ughwiyannahum ajmaciin buy ballan waxaan ku qaaday in dhulka uu qurxiyo tazyiin waxa weeye macaasidii iyo xumaantii iyo dulmigii iyo fisqigii ayuu u qurxinaya waxa weeye aayadda kalena waxa uu ku oranayaa fabicizatika la ughwiyannahum ajmaciin waa soo marnay fabima aqwaytanii la aqcudanna lahum siraadaka almustaqiim ثم لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين إذن إبليس وطارتي اللهنا وقت بوسيي وامتحان مرك دعاء مرك لغا أقبل إبليس ومركو يرى أنذرني إلى يوم يبعثون ليرى فإنك من المنظرين ليرى دعاء لغا أقبل علماء وحيرادين وامتحان isagana waa la imtixaamayaa dadkana waa lagu imtixaamayaa ee ma aha raalli ahaansho ilaahay uu raalli ka noqday inuu ducadiisa u aqbalay ee waa imtixaan wakhtibaar waxa weeye la is imtixaamaya wey marka allah subxaana wa tacaala ilaahay naga badbaadiyo ilaahayna ma loo toobad keeno aayadahana waa aayado cajiiba waxayna xambaarsan yihiin waxa weeye cabsigelin iyo waxa weeye maaragtay qofka muslimka wax uu aad iyo aad qalbigiisa uu dareemayo inay arrintan arrin khatara tahay marka ibliis wakaa dhaartay oo ku talagalay inuuna dhumiye qof walba naftaada ku baraarug insha allahu tabaaraka wa tacaala intaas ayaan ku joojinaynaa suuradan waxaa inoo haray marka suuratu israa ayaa ku xigta iyo suuratu daaha iyo
aynu u gudbaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin. يا رب واجعل نهجنا نهج النبي وصحابه فبنهجهم فلنقتدي. يا رب وفقنا بعلم نافع واهد العباد على لزوم المسجد. ثم الصلاة على النبي وآله وجميع أصحاب الرسول محمد.